golaha dhaqanka iyo midnimada beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay in ay u taagan yihiin qabashada xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya waxaana ay ugu baaqeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed in ay xilkaasi ugu tanaajiso isla markaana sanadkan iyaga lagu fiiriyo. Bayaan ka soo baxay beeshaasi ayaa laga codsaday madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo in uu aqbalo codsigaasi ka yimid beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed. waa kan bayaan ka soo baxay oo uu akhrinayo mid ka mid ah nabadoonnada beeshaasi. beesha waxay si toosa u dalbanaysaa xilka ra'iisul wasaarenimo in la siiyo beesha shaqaal weyn ayay dalbanaysaa waana ay mudan tahay waayo waxay ahaan jirtay culimmadii Soomaaliyeed waxa lagu aamini jiray wax kasta maantana waxaan jecelnahay in ammaanada Soomaaliya loo dhiibo beesha laguna tijaabiyo bahweynta Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay arintaas nagu taageeraan madaxweynahana waxaan ka rajaynaynaa inuu codsigeenna tixgeliyo una fiiriyo beeshan xuquuqda ka maqan asigoo uga abaalgudaya ra'iisul wasaaraha cid kasta kula tartami lahaydna waxaan leenahay ha ugu tanaasuleen walaalood. waxaa sidoo kale inta goobta ka hadlay suldaanka guud ee beeshaasi Suldaan Xasan Gulwade oo ku baaqay in ay u taagan yihiin qabashada xilka ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ee cusubna ugu baaqay inuu aqbalo codsigooda. farmaajo ha iloobin maanta gacantaaday ku jirtaa yayse kaasin birraxanin beesha xaq u leh maanta qolo waliba way soo martay xukunka madaxweyne soo martay prime minister bay soo martay maanta annaga xaq u leh ee ummadda Soomaaliyeedna sida garab ha nagu siiso farmaajana sida qalinka ku duugo wabillahi tawfiiq. gabagabadiina waxa beeshaasi ay soo dhaweysay doorashada madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya oo doorteen xildhibaanada labada aqal ee dalka Soomaaliya iyagoona sidoo kale Soomaalida Ilaahay wax siiyay ugu baaqay in ay u gargaaraan dadka abaartu ay saameysay. Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho.